السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada magacaygu waa Xuseen. Maanta waxaa inoo bilaaban doona koorsadayni ahaa muuqaal samaynta ama video editing-ka. Koorsada maanta wuxuu noqon doonaa inaan soo degsano oo kombiyuutarkeena ku shubno barnaamijka Filmora. marka ugu horeyso waa inaad haysataa kombiyuutar, midda ku xigtana waa inuu kombiyuutarkaaga uu ku jiraa browserada, mid ka mid ah browserada. insha Allah anagu waxaan isticmaalaynaa browserka la yiraahdo Google Chrome. okay, so waxaad soo furtaa Google Chrome-ka. markaad soo kicisid Chrome-ka uu soo kaco, qaybta sare ayaa waxaa ku qortaa filmora.wondershare.com oo ah website-ka ku jira barnaamijka. sidoo kale website-kan waxaa ku jira barnaamijyada ay soo saarto shirkadda Wondershare. qaybta hoose ayaad aadi, halkan ay ku qoran tahay Filmora 9 oo ah new update. waa update-kii ugu dambeeyay ay shirkaddu ay soo saartay, version-kiisa uu yahay 9.5. bishan aynu ku jirno gudihii ay shirkaddu soo saartay update-kii ugu dambeeyay. waxaad ku dhufanay meeshay ku qoran tahay try it free, waana mid free ah, ma aha lacag. okay, wuu ku soo dejinayaa. okay, wuu soo degay. saa u jeedid barnaamijka ayaan double click ku dhahaynaa. sidaa u jeedid waxaa hadda uu inoo bilaabayaa inuu ku shubo kombiyuutarka barnaamijka. waxayna qaadan waqti dheer, waan isku soo laaban doonaa. okay, isku soo laabasho wanaagsan. okay, markuu dhammeeyo ku shubitaanka, markaas ayaad waxaa taban start now. soo marka wuxuu bilaabayaa inuu kuu soo kiciyo barnaamijka. browserka kuu soo furay, uma baahnid, waad iska xiri browserka dhig, uma baahnid. okay, haddeer wuxuu bilaabayaa inuu soo kiciyo barnaamijka. markii ugu horeyso markii tahay oo barnaamijka uu soo kicinayo, waxaa laga yaabaa inay qaadato waqti. waa cabaar, waa inaad u kaadisaa oo aad sugtaa. saa u jeedid barnaamijka Filmora hadda wuu inoo soo kacay, qaabkiisana sidaan ayuu u eg yahay. insha Allah barnaamijka iyo hordhiciisa waxaan ku qaadan doonaa casharada soo socda insha Allah. socod wanaagsan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.